afar nooc oo buskud ah oo buskudadii ciidda aan ugu talagalnay oo bilaa dab bilaa oven aad ku samaysanaysid weeyaan insha allah. La socda videoga qaybaha soo socda insha allahu tacaala si aad u daawataan videoga iyo habka loo sameynayo dhammaystiran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي دمانتي بسو دوادا وانيغو رحمة halka digala socodsan waa Dedan Kitchen. aadi aad baan idinku mahadnaqay sida fiican aad nala socotaan. Maanta videoga aan inoo wada waa video ku soo baxaya munaasabada Eidul Fidriga ee fooda inagu soo haysa insha Allah ilaahay khayrkeeda hayna gaarsiiyo. Videoga maanta wuxuu ku saabsan yahay waa buskud, waa afar nooc oo buskud oo kala duwan. afarta nooc wax weeyaan buskud aan u baahnayn midnaba inaad oven ka gelisid ama aad dab saartid. waqti aad u kooban ka qaadanaya marka insha Allah in isla eegno in soo samirno videoga bilow ilaa aakhir aan soo wada daawan isla eegno insha Allah. ugu horeyn halkan waxay igu diyaarsan waxyaabaha aan buskudka ka wada isticmaalayo dhammaantoodba insha Allah. dabcan waxaan isticmaalayaa cornflakeska waxaan kaloo isticmaalayaa boorashka maxay hayday waxaan sameeyay boorashka 2 minutes ku bislaada sida dhaqsaha oo bislaadan soo qaatay instant ka loo yaqaano. boorashka waxoogaa dabkan saaraya maqlahan ku soo yar saloolaya ilaa uu midabkiisu iska yar bedelayo. halkan waxaan sidoo kale ku haystaa peanut butterkii iyo nutelladii chocolate nutelladii waxaan ku isticmaalayaa sidoo kale malabkii. malabkan anigu isticmaalaya waxa uu yahay malab dhadhanka zanjabiisha leh. marka malabkaas baan insha Allah ku darsanaya hadii ilaahay raaha maanta wax sonkor ah yaraatay kuma daray buskudkeena bal ka warama. sidoo kale waxaan isticmaali doonaa qishda. waxaan sidoo kale isticmaali doonaa xalaawa tahini ama daaxuniyada waxaan naqaano ayaan isticmaali doonaa insha Allah. sidoo kale waxaan isticmaali doonaa hadii ilaahay raaha oo aan u adeegsan doonaa alaabahan in hor yaala afar nooc oo buskud oo kala duwan. waxaan isticmaali doonaa sidoo kale timirta lowska iyo coconutka intaan special isticmaali doonaa. aan hadba ku bilowno buskudka ugu horeeya aan isticmaalino. buskudka ugu horeeya aan sameynayna waxaan halkan ku haystaa cornflakes. cornflakeska waxaa isticmaali kartaa ka malab kale yar maxay haday macaan kale ama cornflakeskeena caadiga hadba kad aad u jeceshahay aad isticmaalaysaa. marka cornflakeska soo qaaday waxoogaa gacanteeda ku yar burburinaya ma doonayo inaan soo tumo waayo waxaan rabaa inuu still uu yar taagnaado marka gacanteeda ma ugu yar burburinaya insha Allah xoogaha. wallahi buskudkan waa buskud aad u macaan aad caruurta u jecel yihiin uga helaan waqti kasta iska samaysan kartaa munaasabad iyo munaasabad la'aan wax hawl badan kaga baahan maaha. waxaad iska gashanaysaa intaad iska samaysatid talaagada gashanaysaa caruurta waqti xilli kasta siin kartaa nus saac siin kartaa waxaad siin kartaa iskuulka u qaadan karaan yani wax ku dhibaya haba yaraatee maaha. waata buskudkii waan soo yar burburiyay cornflakeska min jeedaa waxaan ku darayaa malabka waxaan ku darayaa inta adu qiyaas qaad baad macaan gasaad u jeceshay ku xidhan tahay. imika waxaan ku daray mulqaacad haddana waxaan ku daray mulqaacad kale labada mulqaacadood ayaan maxay ahayd ku darsanayaa malabka. waayo dabcan waxaan ku darsanayaa chocolate marka maadaama aan chocolate ku darsanayo macaan isagii baa le marka macaanka inaan ka yareeno ayaa maxay ahayd fiican. waxaan ku soo darsanayaa chocolate kaygii sidoo kale laba mulqaacadood oo chocolate ah ayaan ku soo darsanayaa. videoga maanta waxaan ka cudur daarnay waxoogaa u dheeraanaya maadaama aynu dhowr buskud oo kala duwan aan sameynayno laakiin waxaan idin ballan qaadayaa in intuba insha Allah idin ajiibin doonaan aadna u fududaan doonaan. ramadaan
sideeda kaleba ayaa madbaxa loogu caajisaya waqti badan aynu u galnaa. Marka wax yar oo fudud oo aynu sameysan karayno oo aan oven iyo tacab badan kaa gelin weeyaan insha Allah. sidoo kale waxaan ku darsanayaa peanut butterka. peanut butterka waxa weeyaan bahasha sida chocolate-ka ah ee lowska ka sameysan subaga naga saar lowska weeyaan. Marka iyada isagana 2 qaadad baan ku daraya. inta markaan isku wada daro ayaan xoogaha yar waxaan isku soo yargelinayaa microwave-ka. haddaad microwave haysanin waxaad samayn kartaa biyo inta dabka saartid ayaa dabada u yar saaraysaa si uu xoogaha yar usoo dhalaalo peanut butterka iyo chocolate-kaba ay usoo dhalaalaan. kadib intaas marka aan soo diyaarsado waxaan sameynayaa in aan isku wada walaaqo oo aan iswada dhex geliyo. si fiican baan isku wada dhex gelinayaa. waxaan doonayaa xabad kasto cornflakes-ka inay chocolate-kii iyo peanut butterkii ay maxay ahaydey si fiican gudaha uga gasho. markaas midabkiisu isbedelayaa, chocolate-kii wuu ekaanayaa. waxaan soo qaadanayaa sahni, waxaan soo dul saartay warqadda ofinta la geliyo ama parchment paper-ka loo yaqaano. haddaad haysanin warqad caadi baad u dhigan kartaa. aduu waxa dhowtoole marka aad kasoo saartid kaaga fufuqo ma loo baahan yahay si aanay kaaga dhigin weelkaaga. waa kaas asxaabteeda qaaliga ah dhammaantiinba 2 mulqaacadood baan ku haweenayaa aan ku sameynayaa shaybkiisii. kabacdi waxaan saarayaa weelkii aan ugu talagalay inaan ku geliyo. saas baan soo dhamaystirayaa saxniga kaga soo buuxinayaa. markaas muqaacadaan kusoo qaaday, muqaacada kalen kaga soo ridayaa. maasha Allah waba fudud yahayba. xitaa caruurta ayaa maxay ahayd kula sameyn karaysa, ku caawin karaysa markaad sameynaysid. wax hawla haba yaraata ee uu bahalkani leeyahay ma jirto. inkastoo maxay ahaydey caruurta marka ay kula sameynayaan dee wabay kaa hoos dhameynayaan bamacaankiisa waa wax bisil oo wax qeyrin maaha. marka saas baan kusoo wada dhameynayaa saxankayga dhammaantii. kadib sidaas baan kusoo wada dhameeyey. iminkana waxaan gelinayaa talaagada. talaagada waxaan xoogaha gelinayaa soo isku qabsado qabowga ay chocolaatadii iyo peanut butterkii aan dhalaalinay ay dib isku noqoto. marka insha Allah xagga iyo fridge-ka ayaan soo gelinayaa. iminkana waxaan sameynayaa biscuitka labaad waxaan ka sameynayaa boorish ama mashaalida hadba sidaad u taqaanaan. boorishka sidaan hore baan ku sheegay dabka ayaan soo saaray, waan soo saloolay. midabkeeda markuu isbedelay cadaan aad u cad bay ahayd markii hore, brown markii soo yar noqotay ayaan kasoo qaatay. waana taa loogu talagalay instant-ka wax yar waqti yar ku bislaata. marka insha Allah halkan waxaan ku haystaa lowskii, waxaan halka ku haystaa timir aan soo yaryareeyay aan lafta ka soo saaray oo aad soo yaryareeyay. halkan waxaan ku haystaa qishtada ama labeenta hadba soo taqaanaan. halkan waxaan ku haystaa malabkii waan idin sheegay horaan idinku sheegay wax sonkor oo aan ku darsanaya maanta buskudada ma jiraan. dhammaantoodba waxa weeyaan sonkorta aan macaanka u isticmaalay waa macaan dabiiciya. amba sonkor ha ahaado amba timir ha ahaado waxaan jeedaa amba malab ha ahaado ama timir ha ahaato ama chocolate ha ahaado, yani waxyaabo dabiiciya weeyaan. waxaan ku darsanayaa qishtadii. sidoo kale waxaan kusoo darsaday lowskii
lowska waxaweyaan waa dhowr nooc oo lows isku jira aan soo yar tumay. Sidoo kale waxaan ku daray timirtii. masha Allah waxaweyaan biscuit caafimaad leh, dhameystiran, aad u dheelitiran. waxaweyaan aad ka helaysaa fiberkii, waxaad ka helaysaa nutskii, waxaad ka helaysaa timirtii oo macaankii inuu sameynaysa dabiiciga ahaa. sidoo kale sokor aan kuma darsanayno, malab baynu ku darsanaynaa. marka sidoo kale isaguna saasaan soo wada walaaqayaa, soo wada gelinayaa. kolley boorashadu kala duwan yihiin, marka hadba qiyaasta intuu ka qaadanayo creamka ama qashtada waxay ku xidhnaanaysaa nooca mashalada aad isticmaalaysid. ugu dambeyntii saas buu soo noqday marka aan kusoo darsaday daasadaydii ama qascadii yareed ee qashtada ahayd. kadib qaacadayda soo qaadanayaa, sidoo kale ayaan sameynayaa. weelkan ku wada diyaarsanayaa haddii ilaahayna. wallaahi aad iyo aad buu u fudud yihiin biskudadan. maanta waxaan ugu talagalay hooyo kasta iyo wiilasha salbateerada, cid kasta oo doonaysa inay sameyso biskud yar oo fudud, cookies yar oo ay munaasabada ciida kaga qayb gasho ama sida kaleba ay u sameysato. maxay heeday inoogu talagalay videogan. sidoo kale hadda biskudkan aan wadnaa quraac waad ka dhigan kartaa, oo waynu naqaanaa boorashka mashalada waxyaabaha aadka ugu fiican bay kamid tahay quraacda subaxdii hore. marka haddaad 2-3 milo biskuda iyo qoobkaaga shaaha ama qaxwahaaga aad ku dhufatid aroortii, dee wax kalaba uma baahnid. hadda waxaan soo qaatay mulqaacada ice creamka ama ice cream scoopka loo yaqaano. mulqaacadaas ayaan biskudkii kusoo cabeynayaa, kadib aan kasoo ridayaa. waa fikrad kale oo aad isticmaali karaysid. markaasaas ayaan isagana kusoo wada dhamaystirayaa sixnigayga, una diyaarinayaa inaan isagana talaagada xaggeeda sare ama xagga hoose. haddaad degdegsan tahay xagga sare yar gelinaysaa muddo aad waqti yar kooban 10 ilaa 15 daqiiqo. haddii aanad degdegsanayna waa caadi, xagga hoose waad iska gashan kartaa. habeenka aan kugu jirayaa masha Allah ilaa intuu ka jaamadayo. asxaabteeda qaaliga, iminkan waxaan u nimid biskudkii saddexaad ee aynu biskudkan waxaan ka sameysanayaa isaguna cornflakeska. waxaan ku darsanayaa coconut-ka xaquuqan ama qumbaha ayaan kan ku darsanayaa haddii ilaahayna. waxaan sidoo kale ku darsanayaa qashtadii. طبعا kan waxaan ku darsanay waxoogaa yar oo sabiib ah. sidoo kale waxaan ku darsanayaa caanaha coconut-ka. halka hada kamarada ay waxoogaha iga yar ciladisneed, focuskan hore u qaadanin. marka waxa weeyaan caanaha qumbaha coconut milkiga ayaan iyagana waxoogaa ku darayaa muqaacad ilaa 2 muqaacadood adoo ayaan ku darsanayaa. masha Allah isaguna waa biskud aad iyo aad u fudud. ha hilmaamin inaad ku darsatid malabka. aan wan iloobiyay gadaal baan ka xasuustay malabkii markaas ku laaqayay. marka malabka ha ka iloobin, sababtoo ah malabka wuxuu ku siinayaa testiga macaanka ee biskudka looga baahan yahay inuu ku yeesho. marka waxa weeyaan isku wada gee, si fiican isku wada dhexgeli. biskudku waa diyaar.
marka waxaan sameynayaa insha allah gacmahayga ayaan ku soo kuskuusaya saliid yar maxoogaan soo marsaday si aan igu dhigdhigin kaas maxaaba mulqaacdi waxaaba kugu daalnaya gacmaheena ilaahayna siiya subxaana watacaala ayaabaan ku shaqaysan karnay wakaas waxoogaa buskudkan waan ka yar wanaysiyey in yar lumahlisan ka yar balbalaaliya buskudada kale wallaahi buskudkaas iyo buskudada kale mid ka dhac male bal ila soo wada tijaabiya insha allah soo eega kii idinku fiicnaada ama idinku dhadhan macaanaada hamogaana commentiga xagga hoose inaad noogu reebtaan asxaabtayda cusub channelkayga maanta ugu horeyso waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe gareysaan badhanka cas waa inaad cadaysa insha allah asxaabtayda hore aan wada joognayna dee naga daaya akhi aamusnidan commentiga insha allah ha laydinka harko buskudka kad idinku cajibiyey kad aada uga jeclaateen idin cajibiyey xagga hoose commentiga noogu dhaafa wakaas buskudkii markii aan usoo dhameeyey isna talaagadan gelinay insha allah sidii kuwii hore kale ugu dambeyntii maanta waxaa aan bilaabaynaa imika buskudka ugu dambeeyey aan videogan maanta ugu talagalay insha allah buskudka maanta aan sameynaynaa wuxuu yahay sidoo kale labadii noocin hore usoo isticmaalnay ayaan meel iskugu geenaynaa waa conflexkii iyo boorashkii on hal meel iskugu geenay halkan waxaa iigu jirta daxuuniyadii ama maxay heeday xalaawo taxiniyadii aan soo xoogaa soo yar dhalashaday microwave-kan xoogaa soo yar geliyey kadib waxaan dusha kaga darayaa conflexkii iyo boorashkii waxaan asxaabtada qaaliga u sheegayaa ha iloobina markasta daxuniyadu macaan bay leedahay oo iyadu macaan gaara oo ay ku samaysan tahay bay leedahay markaan soo iibsano markaad ku darsanaysid malabkaaga iyo waxa kale taa maskaxdii niyada ku hay si aanay buskudkaasi saa'id kaaga noqonin macaan dhaaf waxaan ku darsaday sidoo kale lowskayga maan isagana kusoo darsaday waxoogaa yaro lows ah oo mixed nuts isku jirjira kadib sidii oo kalena isaguna usoo kuskuusayaa markaas buskudkaygii ugu dambeeyey aan ugu talagalay weeyaan videogeenan maanta saas usoo wada kuuskuus soo wada dhigdhig ofin ha isku hawleen bikil uma baahna wuxuu u baahan yahay haba yaraatee ma jirto bes samee fridjka ku yar tuur 15 daqiiqo meelaha 10 daqiiqo kasoo saar dee waxaan kuli martidaada iyo caruurta iyo xaajiba uga soo tuur masha allah waa kaas baan soo dhameeyey waxoogaa yar oo sisin ah ayaan dusha kaga daray si aan decoration yar uga dhigo dhadhankiisana ay qayb qaadato maadaama aan marka u horeysa aan ku daray daxuniyada aan ognahay waxyaabaha laga sameeya waxaa weeyaan sisinta markaa sisinta inay ka muuqato oo hadhow ku garto inay tahay kii daxuniyada lahaa asxaabtada qaaliga biskudka ugu dambeyn waa kan markuu inoo soo wada baxay talaagada kasoo saaray 4 nooc oo kala duwan oo aada u fudud oo dhadhankoodu iyo testigooda aan idinka soo tijaabiyey aan huban inaad ka wada heli doontaan waqti idinkama qaadanayo aad iyo aad u macaan yahay bal asxaabtada qaaliga waxaan idinka codsanaya inaad ila soo tijaabisaan ood soo samaysaan ood fariintiina ila soo socodsiisaan insha allahu tacaala videogan iyo videoyada kale insha allah intaan dib ugu kulmi doono dhammaantiin baan idinka wada mahadnaqaya sida fiican aad noola socotaan insha allahu tacaala waxaan isku dayay markasta inaan wax idin cajabeeyay soo galiyo